Cabdiraxmaan waxaa qalbigiisa ka guuxayay sida quruxda badan ee jacaylka uu qalbigiisa u saameeyay. Cabdiraxmaan wuxuu isweydiiyey erayo fara badan kuwaas oo ka mid ahaa: adiga dhagool ayaa tahay, haddii Samsam jacaylkaada u sheegato sidee kaaga aqbali kartaa? Sidoo kale Samsam nin dhagool ah ma jeceshahay? Waayo Samsam hadda waa ay ku tixgelisaa, aad ayayna kuu qadarisaa, waxaana laga yaabaa in jacaylka haddii aad u bandhigto ay kaa xishooto. Ayuu Cabdiraxmaan isdhahay. Geesinimadiisa ayuu adeegsaday, hadiyado kala duwan ayuu u keenay, sidoo kale erayo jacayl ayuu weydiiyey. Ugu dambeyntii, maalin maalmaha ka mid ah, Cabdiraxmaan waxa uu go'aansaday jacaylka baaxadda weyn ee qalbigiisa galay in uu Samsam u sheego. Samsam ayaa Cabdiraxmaan waxa uu dhahay: Samsam, ka waran, waxaan nahay laba qof oo saaxiibo ah. Labada qof oo saaxiibada darajadooda markii ay gaarto meel sare waxay u baahan yihiin in ay samaystaan xiriir jacayl haddii ay isfahmaan. Samsam ayaa dhahday: aad ayaan u jeclaan lahaa Cabdiraxmaan, adiga xataa mar walba waxaan kula jeclahay inaad samaysatid xiriir wanaagsan si noloshaada meel fiican ay u gaarto. Markaas ayuu Cabdiraxmaan dhahay: Samsam, ka waran haddii aan ku dhaho waan ku jeclahay, maxaad igu samayn lahayd? Samsam waa ay yaabtay, waa ay qosashay, waa ay dhoola caddaysay. Hadal yar oo gaaban ayay dhahday, inkasta oosan Cabdiraxmaan uusan maqlin. Markaas ayay Samsam dhahday: jaanis ma sii kartaa aan uga soo fakaro in jacaylkeena halkaan aan ka daadahayno? Cabdiraxmaan ayaa dhahay: haa, waqti walba oo u baahantahay waa ku sii karaa, xitaa sanado badan ayaan ku sii karaa si aad uga soo fakarto jacaylkeena. Cabdiraxmaan iyo Samsam waxay ahaayeen laba qof oo aad isku tixgeliyo, laakiin Cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin dhagool ah, maxaa yeelay inta badan dadka dhagoolada gabdhaha ma jeclo oo waxay jecel yihiin qof mar walba waxay rabaan ay ka heli karaan. Laakiin mar walba xusuusta waxay tahay in aan la isku nici karin abuurista Alle. Halkaas ayaan kusoo afmeerayaa qaybtii labaad qisadii xanuunka badneed Cabdiraxmaan iyo Samsam. Waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed, Mahad Socdaal. Waxaad ka daawanayseen barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24. Nagu xirnaa qaybta saddexaad ilaa iyo dhammaadka sheekada. Waxaan rajeynayaa wax badan inaad ka faa'iidi doonto.